السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لبا halkan meel kastoo naga joogtaan Soomaali Maxamed oo naga daawanaysaan maanta waxaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay idmo tartamadii ordadii soo dhacay soo qabsoomay bishii hore iyo bishan hadda ku dhex jirno iyo tartamada soo socda xagga orodka qaar ahaan orodyahanada reer Djibouti waxa ugu horeeyay tartankii ugu horeeyay ee ka dhacay dalka Seville dalka Spain gaar ahaan Seville oo ka qabsoomay orodkii weynaa ee full marathon-ka iyo half marathon-ka iyo 5 kilo fast running halkaasoo 5 kilo fast running uu ka qayb galay Captain Fatah Ismail Ibrahim oo ahaa orodyahankii kaalinta labaad ku guuleystay 5 kilo ee waxay ahayd ee kulmisay orodyahanada ugu fiican sanadka oo loogu talagalay inay national record ay dhamaantood wada sameeyaan asahatay waxa Fatah sameeyay kaalintii labaad ayuu ku guuleystay 5 kilo fast running waxa ku xigay oo qabsoomay haddana marathon-kii ka dhacay dalka Japan gaar ahaan Osaka halkaas oo ka qabsoomay orodkaasi uu kulmiyay orodyahanno badan waxaana ku guuleystay Ibrahim Bou Hassan oo isagana ka tirsan ilaalada jamhuuriga oo ku orday 2 saac iyo 5 daqiiqo iyo 20 sekin waxa hadda axadii ku xigtay haddana waxa orday Muhiddin Wacays oo isagana ordadii orodkii ka dhacay dalka Japan gaar ahaan Tokyo oo ahaa majorada orodka Tokyo Marathon isagoo baxay kaalinta 19aad kuna orday 2 saac iyo 7 daqiiqo sanadkii hore orodka orday waxa uu ku orday 2 saac iyo 10 daqiiqo hadda wuxuu ku orday 2 saac iyo 7 daqiiqo waxa uu sameeyay dhaqaaq xoog weyn oo ah 3 daqiiqo oo u dhiganta 1 kiiloomitir oo halkii hore maalinkii sanadkii hore ayuu ka soo dhaaqay 1 kiilo buu ka soo geeyay saacadiisii hore waxa qabsoomi doona hadda foodan nagu soo haysa haddii Ilaahay idmaayo Lipson half marathon oo ku mid doona orodyahanada aad u waaweyn oo ka mid yahay Jacob Kilimo oo u dhashay dalka Uganda oo ah ninkii sameeyay world record-ka half marathon-ka kuna orday 56 daqiiqo lagana masaxay ee la yiri orodkaasi half marathon-kaasi saacadaasi suurtagal maaha sabab awgeed gaariga oo distance-ka ku soo dhaweeyay oo ahwadii wuxuu dhan ka xiray iyo dariiq oo si fiican la yiri waxba aan lahayn gaariguna space badan uu ku dhaxayn 10 mitir ilaa 15 mitir buu ku dhaxay markaas ay soo baxeen World Athletics ay sameeyeen inay yiraahdaan half-kaasi record-kaasi malihid ilaa waqti xaadirkan uu iska sii haysanayo Kajeshi oo dhashay dalka Ethiopia markaas isla waqtigiiba wuxuu qaraar degdeg ah qaatay Jacob Kilimo oo lagu yaqaan firfircooni iyo diiranan in uu yiraahdo waxaan ordayaa Eastern Lipson bil gudaheed way gaari ba ka filaa waqtigii la shaaciyay waxa ka qayb gali doona Captain Fatah Ismail Ibrahim oo maanta oo ah Khamiis trainingiisii ugu dambeeyay amba sectionkiisii ugu dambeeyay ku sameeyay Tharaka Stadium Kenisi Bekele ee ku yaala Sultan Garahan Addis Ababa waxa uu rajeynayaa in uu sameeyo national record-ka Djibouti oo maanta uu ku tala jiraa haddii Ilaahay idmaayo wuxuu dhici doonaa orodkaasi maalinka Axadda wuxuuna ka dhici doonaa Lipson wadanka Portugal waxaan rajeynayaa dhammaan daawadayaasha ku xiran Jibrana inaad la socon doontaan ciyaaraha Djibouti orodyahanada reer Djibouti meel kasta ka ordaan dhamaantiin waxaan leeyahay guul hor leh orodyahanada reer Djibouti hore u socda dhamaantiin guuleysta waligiin oo jiro oo jooga